magaalada Buuhoodla la yiraahdo in carqaladii ka jirtay ciidamadii qarankuna saaka meel balli cad la yiraahdo eryanaya ninka sheegaysa ciidanka qarankana waan ku amaanaynaa wasiirka caafimaadkana waan ku amaanaynaa madaxweynaha iyo xukuumaddana waan ku amaanaynaa kuwa meelahan jooga ka daba qaylinayana waxaanu leenahay adeer mid kale oo kii aan eryanay la mid oo meelahan fadhiya looma baahno nugaal waa ka warhaysaan komishinkii uu tagay gaascaanood uu dhaafay uu ka war keenay waxa kale uu tagay taleex iyo xudun wuxuu tagay laasqor iyo dhahan iyo baran waddankan in doorasho ka dhacdo wixii dib jiray meelaha ka yimi ee fidna ka wada laga eriyo nin walibana deegaanka uu joogo uu ku filaado ayaa loo baahan yahay in la isxasaradeeyo looma baahno shaqaa loo baahan shaqa annagana nalaga rabo nugaalla waa la tegey sanaag barina waa la tegey Buuhoodlana insha Allah komishinku uu tegayaa doorashaduna way ka dhacaysaa waxa meelahan ka qaylqaylinayaana cid ay matalaan iyo cid wax u diranaysa adeer ma jirto ninkii xagxaganayaana waa nin Soomaaliland diidan ninka saaka xagla toosiyay xagxaganaya nabaday xildhibaan hal saal baan ku weydiinaya marka leedahay kuwa meeshan jooga waxa kama taliya ama meel ma joogaan waa xildhibaano waa wasiiro waa siyaasiyiin ka soo jeeda gobolada bariga Soomaaliland taas miyana deelqaaf ugu hayn adigu aniga deelqaaf ma aha adeer cali khaliif kale oo halkan edeb darro la wareega looma baxno nin cali khaliif riyada loo baahay cali khaliifka halka jooga cali khaliif kale oo halkan fadhiyo oo ninkii wax qabanaya riyada looma baahno siyaasiyiinna ma aha waa saaqidiin أنا أقول إنه يجنا أتجوا ويديو عند عين كاسيدي كله وحلا عليه وحنت بندابيه إلا ما تشوفه حلو عن مركز إذن كيني سكوت يجان كهايدات كيني للدنيا أنا ضحك بطان عدت كي أول هرنا سكوت العون شرتين دي جود عدت كفاني شرتين ما أنت أنا سكوت القفصتان دي كواحد وتر الكور نعرف سليته حلو حنو كادت شوابنا ويدي عدت كيني سكوت القفصتان يمكن هالك الحقوق قبل الله إذا حلو عساك ولا dadka iyaga waa la isku dabqalsana yaa dumbuulqday ka bilaabantay in halka ninkii Soomaaliland diida halka xabad laga dhifto ilaa burcay socotay berberay socotay wax Soomaaliland boorama ku heshiisay ninkii Soomaaliland ka hor yimaadeen gacanta la wada saaray annagu uma baahnin wax halkan xasarad la fadhiyo wax rag dalka soo weeraraya wax ka qabtaa loo baahay adiguna adeer su'aalaha dadka weydiinaysa ka fiirso waddan baa la difaacayaa shakhsi lama rabo adii ilaa intaad fadhiday maxaad qabatay waxaan qabtay taleex baan ciidankii geeyo ka eriyaday saaka la hadalka oo 180 kiiloomitir laas aanood ka shaqeysay